Ababa iyo goorta Abiy Ahmed oo isaga carari doona magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadda mar haddii jabhadaha huwanta ay si aad ugu dhawaanayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayna muuqatay inuu socdo qorshaha wadamada reer galbeedka ay ku doonayaan in lagu cadaadiyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Warbaahinta madaxa bannaan ee halkaasi ku sugan ayaa xaqiijinaya in ciidanka jabhadda TPLF ay la wareegeen inta badan deegaanka Shawa, waxaana ugu muhiimsan magaalada lagu magacaabo Sambete oo 260 kiiloomitir u jirta magaalada Addis Ababa. ciidamada jabhadda TPLF waxay qabsadeen gobolka Shawa waxaana dagaal xoogan la sheegay inuu ka soo bilowday dhanka waqooyi ee Tigreega iyagoo cagta soo mariyay gacantana ku dhiga magaalooyinka Desi, Kobo, magaalada Lalepela, magaalada Gashana, magaalada lagu magacaabo Mersa, gobolka Waldiya ilaa ay soo gaareen deegaanka Sambeta oo 260 kiiloomitir u jira magaalada Addis Ababa, waana magaaladii ugu dambeysay oo gacantooda soo gashay jabhadda TPLF. waxaa hadda u haray kaliya waxay tahay inay u jihaystaan dhanka iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. mar kale iyo wararka ugu doorka roona ee caalamka militariga Suudaan ninka isafgambiyay labada jeer General Abdel Fattah al-Burhani ayaa soo saaray go'aamo uu ku tilmaamay inuu soo celi doono dastuurka dalka u laalay sidoo kale uu sii wadi doono wada hadallada uu ku tilmaamay inay wad qaybsi ay noqon doonaan oo la yeelanayo xubnaha dawladda. waxa uu la kulansanaa xakaariyaha xogayaha arrimaha dibadda ee waaxda arrimaha Afrika ee US loo yaqaan US African Affairs Molly Phil waxaana ay sheegeen in ay ka wada hadleen arrimo waaweyn oo kamid tahay xaqiijinta iyo dib u soo celinta hannaanka dimuqraadiyad iyadoo militariga dalkaasi wali sii wadaan iska hormaado xoog ah oo ay kala hortagayaan dadka iyagu diiday ee ka dhiidiyay in ay militarigu ay awood qaataan. waxaa la sheegay dalkaasi awoodooda gacanta ku dhigeen dad loo maleynayo wax markaasi kooxo isku xiran oo ka socda dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil kuwaas oo la aaminsan inay ku lug lahaayeen afgambiga halkaasi ka dhacay.